qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay walaalayaal oo ku khaasa dadka markaa waxa weeyaan tartamaya waxaanu leenahay waa guryaha karaysateen ee ay u karaysateen inay ku tartantaan waar waxay ku amaaradsan yihiin macsiyo waar waxay ku amaaradsan yihiin xumaan waar waxay ku amaaradsan yihiin salaad la'aan iyo cibaado la'aan waar waxay ku amaaradsan yihiin ikhtilaaq iyo isdhexgal waar waxay ku amaaradsan yihiin muusig iyo jaas waar waxay ku amaaradsan yihiin dhafar iyo soo jeed waar waxay ku amaaradsan yihiin inay ka seexan waayaan dadka jaarka ah ee laga yaabo inuu qofku xanuunsanayo inuu dhiikar leeyahay inuu macaan leeyahay in markaa waxa weeyaan xanuun kalaba uu qabo habeen oo dhan waa lagu soo jeedaa idinkaa u kureeyey ma soo kormeerteen ma la hadasheen wanaagga ma farteen xumaanta ma ka reebteen mise waxaa eegtaan inta dad idiin timid ee halkaa ku soo ururtay ma intaasunbaa eegtaan idinka idinku qormayaan xumaanta halkaa ka socotaa idinkaa u kureeyey dadkeennii in badanoo ka mid ah akhlaaqdii baa ka dhimatay gabdhaheenna daaqadaha ka lusheen daaqadaha fuuli jirin ee baabuurta dhexdooda ka qaylinaya waa dhaqamadii markaa doorashooyinku ay noo keeneen iyo nidaamkan idinkaana idinku qoran yihiin waa in idinku wax ka qabataan kuwa marka hadh iyo habeenba iscaayaya idinka idinku qormaya waa nidaamka ah keenteen ayaa markaa wax laga dhaxlay waar munkarka iyo xumaanta noocaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal waa waxa beledkeenna iyo dalkeenna iyo amnigeenna iyo xasiloonideennaba xumaynaya waar maqla dadka naasixiinta idin naseexaynaya duunyana aan idinka doonaynin magac iyo markaa wax mansabna aan idinka rabin lilaahi idinku naseexaynaya waar naseexadooda maqla waar dadka iga yaaci ha odhanina munkarka iyo xumaanta xafiisyada ka socota waxa weeyaan wax ka qabta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada waa ka markhaati kaceen dadka markaa tartanka ku jira qaar ka midihi xumaanta dhacda iyo zinada dhacda midhaha xun ee ka soo go'a in 9 bilood oo loo tiriyo